بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta fariintaydiisa waxay noqonaysaa adduunyo jacaylka maxaa keena ama maxaa aasaas u ah. waxa aasaas u ah 3 qodob: jahlu bicadamatillaah, qofka ay ku yaraato weynida ilaahay qalbigiisa, waxa weeyaan qodobada keena. sidoo kale qodobka labaad waxa weeyaan jahlu bixaqiiqati dunya, qofkani wuxuu jahli kaga jiraa xaqiiqada dhabta ah ee taala adduunyada. waa adduunyadii wixii loo keenay, wixii loo abuuray, wixii alle subxaana wa tacaala u keenay ayaanu garanayna. qodobka saddexaad oo ah jahlu bixaqiiqati alaakhira, aakhiro waxa yaala qofku inuu garan waayo, oo aakhiro inay xisaab taalo, in cadaab taalo, inay janno taalo, in loo shaqaysto, in lays xisaabiyo. qofku waxaasoo dhan inuu jahli kaga jiro. markaa 3 qodob ayaa aasaas u ah in adduunya jacaylku inagu farabato. ilaahay subxaana wa tacaala 3daaba jahligooda haynaga saaro, hayna garansiiyo, xaqana hayna waafajiyo insha allah.